masjidka Dulxaj oo dhisnaa muddo ku dhow 20 sano ayaa dib u dhis lagu sameeyay waxaana masjidkan loo dhisay qaab casri ah iyadoona lagu kordhiyay dhismayaal kale ganacsato culimaawidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb qaatay dhismaha masjidkan Dulxaj munaasabad dib loogu furayay masjidkan ayaa waxaa ka qayb galay culimo ganacsato iyo qaybo badan oo kamid ah bulshada Sheekh Faarax Maxamed Cajab iyo Sheekh Maxamed Cabdi Cartan oo kamid ah guddiga gacanta ku hayay dhismaha masjidkan ayaa ugu horeyn ka hadlay furitaanka masjidkan dad aad u fara badan oo kumaan kun gaaraya ayaa masaajidkan waxay ku bixiyeen dhismihii lagu dhisay waxa ka warrami doona xisaab celinta sameyn doona gudoomiyaha guddiga Sheekh Maxamed Cabdi Cartan oo lacag 400 iyo siyaada ah ayaa ku baxday marka ilaa iyo 100 kun oo dhadhow ilaa iyo wax laga yaabo inay 1000 ama 2000 ama 5000 oo Soomaaliya u dhiganto ayaa dad baa bixiyay inta masjidka dhismihiisu wuxuu ka kooban yahay qaacadan hoose oo fadhino hoolkan iyo dabaq ka sareeya iyo 5 guri ama 5 shaqo oo deegaan ah oo loo kireeyay iyo 2 qol oo ganacsi ah ayaguna u kireysan si dadkii muslimiinta ahaa oo masjidkaas hantidooda geliyay iyo dadka muslimiinta ah oo ku tukanaya intaba culaysku uga dago oo loo helo wax qarashkiisa lagu fangareeyo waxaan isku daynay in aan ilaa xad intaan masjidka ka fakarayno in aan ka yarayn la geliyo meesha ay ka soo baxayso qarashkii wadi lahaa waa runtii mas'uuliyad aan ka yarayn masjidka baahidiisa waxaan ka yarayn baahida loo qabo wixii socodsiin lahaa intaasi waa dhismaha masjidku uu ka kooban yahay qaar kamid ah culimada ka soo qayb gashay furitaanka masjidka Dulxaj ee dib u dhiska lagu sameeyay oo kala ahaa Sheekh Maxamed Macalin Sheekh Axmed Daahir Sheekh Cabdiwaxid Xaashi iyo Sheekh Axmed Yuusuf Daad ayaa dhankooda amaanay muxsiniintii ka qayb qaadatay dhismaha masjidkan waxa aad wax loogu farxaa in dadku horumarka iyo tadwiirka ay sameynayaan ay ka bilaabaan masaajidda Ilaahay oo iyaga tacmiirkooda iyo hagaajintooda loogu hormariyo waa beydka Ilaahay baa ina amray in la camiro inma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah masaajidka ninkii ku tabcay waxa nabigeenu yiri sallallahu alayhi wasallam wa sadaqatu burhan sadaqada la baxa waa xujo qofka iimaankiisa xujo u tahay ninka intuu gacantiisa jeebka geliyay yiri beydka Ilaahay halaygu daro ninka shaqada ka hayay ninka habeen iyo maalin u soconayay intaas maaragtay laha hal dhiso masana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha مساجد كما حال الربا إن صلاة اللي متفضل علمي اللي هو أخريه فقهك توحيدك سيد شيء أي عالدي وحول البال علماء إلا جهلهم ده قيم مش كلسين علماء كلا قيم تتماد علماء ضمن كفاية إستان يا الربا وأخريان ومدتك وفايديان وحلنا هاي أمة خير من الله سيء الله بركة أنت فرد أنت نجسنا علماء أنت واحد حسن ninka jaafa xagaasna waxa si gaar ah u calaamadshay way iga soo codsay intaan hadaf fadhiday way ii soo diray oo wuxuu walaalo hal ii duceeyo dhammaan waxa la Allah inuu guuleeyo Allah inuu barakeeyo khayr man Allah inuu siiyo hawsha masjidkana waxa ku khatimayaa hawlka madaalo wali waa hogan Sheekh Ciise oo ka socday muwaasasada Al-Minhaaji mid kamid ah ismada gobolka Bari ayaa gabagabadii ka hadlay munaasabada dib loogu furayay masjidka Dulxaj ee dib u dhiska lagu sameeyay masjidkan iyo masaajid la midka ah waxa ehl u ah maartay bulshada deegaanka iyada ayaa la rabaa soo kado inaan nadaafadiisa ilaalino inaan jiritaankiisa ilaalino inaan amnigiisa ilaalino inaan biyihiisa ilaalino inaan kulaylkiisa ilaalino saad kulli dadka ganacsatada iyo diris uu leeyahay iyo dadka oo xaafadda ka baadira dadkii hore oo wada qaatay masaajidka dhismihiisa waxay la tahay inay si wada ka insha Allah taala
cabdirasaaq cabdalla maxamed raadiyaha telefishinka dowladda puntland magaalada boosaaso.